tudnas falatasiyoona yaa shadaadiinta cascad markay xaajadu halkan joogto la kala guranog la kala goosanog laguna kala guulaysoog doonistu waa mid habboon haddii hankaaga ay kaa go'an tahay in halgankaad kaga dhabayso Man United ayaa qaabka ugu quruxda badan iskaga xaadirisay Champions League iyagoo ka tallaabsaday Liverpool ciyaar ay isku adkeeyeen qaybtii dambe oo ay hadiyada siiyeen Liverpool oo ka soo laabtay 2-2 laakiin goolka Mayno ayaa xaqiijiyay guusha iyo ku soo laabashada tartanka taasoo u ahayd kooxda casaanka ee Liverpool habeen wadna go'a dhanka kale Liverpool isbedel weyn ayaa ka muuqday qaybtii dambe waxay ku soo galeen weerar khalaasa waayo wax kale oo ay khasaaraan muu jirin sidaas darteed ayay ugu dhawaadeen ugu yaraan inay dhibic kala baxaan hase ahaatee ugumay filaan oo hoosayntii qaybtii hore ayaa sababtay in gool kale laga dhaliyo oo lagu go'aamiyo ciyaarta habeenkana ay u noqoto in markaasi hore iyo gadaalba shadaadintu ay u martay oo kuwani axankooda yaagaskooda ay u qaadeen Michael Carrick waa sunta ka ilmaysiisa kooxaha Big Six-ka ee horyaalka Premier League Esbjerg Le Messi marka macallinkaagu Carrick yahay weliba ku meel gaar yahay oo markaasi lagu adeegsado 18 jir wadnaha ku jira marka xaaladu u baahan yihiin in loo saaro kornog oo haddana u saar xaalku u gaadho shadaadintu waa gumaystayaasha Premier League wakhtiyo badan balse waayadani kuwii faanayaasha ahaa ee reer qayla quute ayay ahaayeen kuwii haragooda lagu tukaday markaana maryaha laga calaashaday Liverpool way leembaxaysaa maryaha laga calaashanaya haragooda lagu tukanayaa iyagoo madaxa hoos u wada rogayna cawska cagaaran waynu ku arkaynaa hadday sareeyeen mar iyagoo hooseeya ayaynu xaadir u nahay wakhtigan markaad si gaar ah ugu fiirsato markay Liverpool ka jajaban tahay waa marka Man United waayaheeda wacna ay dib u bilowdaan 20 horyaal oo Liverpool haysato intooda badan 40 sano ka hor ama ku dhow koobab ay qaaday weeye kadib waa ka jiifatay waxaana soo karkaar qaadatay Man United oo 13 Premier League qaaday intaas ay Liverpool ka jiiftay Liverpool inay Islot waa macallinka dhanka salaxa ee madaxa garoonka leh inay si aaminayso seasonka dambe ayaa loo arkaa maadaama Champions League haddii uu soo saaro shaqada uu sii wadan karo runtii waa dhibaato weyn Liverpool waayo ninkan energy-ga Liverpool ayaa intan soo gaarsiiyay mana aha macallin wax ku dhex jiraan oo maaha mid lagu xisaabtami karo xaaladaha adag United haddii waayaheeda wacan gasho waxa iyadana macquul ah kooxdii ay xifaaltami jireen muddada 15 sano ku dhow ee Chelsea in iyadana ay boorka iska jafto oo macallin weyn keensato oo xidiga waaweyna ay waqtigaasi maadaama shadaadintu ay soo kacday aan la tusi karin yaa mid xasuusnow horyaalkii ugu dambeeyay kooxda Man United ay qaaday safkeedii ugu badnaa waxa ku badnaa xidigaha lambar 10ka oo Rooney xataa mararka qaar waxa loo isticmaali jiray in uu lambar 10 ka ciyaaro hadda United meelaha ay ka nooshahay waa lambar 10ka ayaa kowka oo ay dhowr dooq bay u haysataa taasina waxay ku tusinaysaa seasonka dambe in uu yahay in United hadday Man United seasonka dambe ay iska socdo hal boos ama laba boos waxba lagama qaban karo looma sii joogayo Man United markii ugu dambeysay Liverpool oo ay home iyo awayba ay garaacdo oo ay u marto kooxdan Liverpool horyaalka Premier League waxay ahayd 2015 iyo 16 10 sano kadib ayay sidii sameeyeen waa taariikh 2025 iyo 2026 United iyo Carrick cabsi ayay ku ridayaan haatan xaaladda Premier League sidoo kale markaan eegno Islot oo isaguna afiya labadii daan yeelay waanu guul daraysanay inaanu xakamayno meelaha ay ku xoogan yihiin si fiican ayaanu garanaynay laadadka xorta sid baseska iyo weerarada rogaal celiska markaad wajahayso United waa inaad ogaataa meesha aad kubadda ku luminayso waxay leeyihiin ciyaartoy badan oo dheereeya kuwaas oo awood u leh inay kugu ciqaabaan xilliga aad weerarka u gudbayso waana dhab ahaan waxa dhacay goolkii labaad ee markaa nala ku ciqaabay Liverpool waad leembaxaysaan xilli ciyaareedkiinuna waxa uu yahay mid gabalbaasi aad moodo inuu dhacay guud ahaan labada kooxood 30 isku day oo shuudadka kubadaha goolka lagu tuuray ayay sameeyeen halka ay kooxda United ay 6 ku aadisay kooxda Liverpool ay 5 ku aadis kubadaysashada darajo kamay doonin kooxda United boqolkiiba 8
halka ay 62 boqolkiiba ka tahay kooxda Liverpool ee liinbaxaysa 354 baas oo ay teeb qaraacday kooxda United 281 ayaa halkay ku diiradaysnaayeen ku dhamaaday 3 gool lagu sababay 585 baas oo ay samaysay Liverpool 516 ayay dhamaystireen 19 tackle oo United 8 tackle oo Liverpool 12 foul oo United iyo 11 foul oo kooxda Liverpool halka koornayaasha ay 3 United heshay kooxda Liverpool ay 2 heshay geesiga ciyaarta waa midka ugu muhiimsan Kobe Maino 67 taabasho hal gool 54 baas hal tackle 2 dribbling iyo 5 loolan oo guuleystay direction of play-ga kulankana wuxuu ahaa mid high class goobihii looga baahnaa iyo goobihii adeegiisa looga bartayna wuxuu ahaa mid ka adeegtay maalintan maalmaha ka tilmaaman markaad haysato 18 jir aqligoodu bislaaday waxay tahay sidan oo kale inaad cadowga maalmahan oo kale gurigaaga masrixiiriyada aad hoosta uga xidhato markay dholla cadayn u maleeyaan inay xaaladdu gaadhayna aad wadnaystaa ku riddo cunaqabad wadnaqabad boqnaqabad intaba Liverpool maalintan way ku liinbaxday Kobe Maino waa xidiga labaad ee Premier League ee inta lagu soo bilaabay safka guuleystay 9 ka mid 12 kulan ee lagu soo bilaabay 75% ninkan haddii safka lagu soo bilaabo way guuleysanaysaa koox xidiga Orial ayaa 77% kulamada ku soo bilaabmay guuleystay 20 guulood ayuuna haystaa 26 halkuu uu kaga soo bilowday mooyna waa xidiga labaad markaad 18 jiro ama da'yaraad haysato halganka aad ku jirtaa waxa uu yahay iyo miisaanka uu leeyahay garanaya maalintan maalmaha ka tilmaaman Liverpool waa laga maxamadaystay qalcaddii Old Traffordna harageeda ayaa lagu tukaday iyadoo xaadira aan dul istaagno Jimmy Carragher iyo Neifel oo dood iyaguna af iyo labadii daan isku yeedhay Gary Neifel waxa uu ku leeyahay hoomiya aweyba ayaan idin garaacnay korkiina ayaan ku dhamaysanaynaa seasonka welina waxaad leedahay Liverpool ayaa ka wanaagsan United maxaa kale oo United samayn kartaa oo aad ku qancaysaa Jimmy Carragher oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa yidhi waxba yay ku sirin inay Man United ku dhamaysato kaalinta saddexaad hal horyaal ayaad ciyaarayseen sanadka dhan wax fiican ayaanaad ka qabsateen balse taas yaanay kaa waalin macallin rasmi ah xitaa idinma joogo weli hawli ma dhawaa waa waali in la dhaho horyaal ayaan qaadaynaa 2 sano gudahood Neifel oo hadalkaasi ku qoslaya waxa uu yidhi okay balse maxaa kuu diidayaa hambalyo inaad dhaxdo oo aad muujiso debecsanaad oo aad ragga libintooda aad u qirto yaa nimankii Liverpool way qaraadhayaan yaa nimanka agoonta ay liinbaxay way qaraadhayaan reer qayla quute dhinaca kale macallin Karen waa ninka keliya ee kooxaha Big Six-ka haragooda iminka ku tukaday Man City 2-2 Arsenal 3-2 Aston Villa 3-1 Chelsea 1-2 Liverpool oo raqdi ugu dambeysay oo markaana 3-2 uu maalinkani ku soo gabagabeeyay markaad haysato macallin garanaya dhiigga kooxda oo uu ku jiro ficiltankii iyo wixii lagu yaqaanay shadaadinta asaas waxaa tahay mid haragooda ku tukada kuwii isfaanshay hore iyo gadaalba waa loo maray kooxdii liin macaanta Tottenham Hotspur ayaanu leenahay shadaadinta waad gorateen waad goosateen waad xalaashateen cidina halka iyada kuma hadli karto kulamada kale dhacayaan isdul taagno Real Madrid habeenkan way maxamadaysatay kadib markii ay kooxda Isbaanyool 2-2 ku garaacday Vinicius Junior habeenkani abdiyeeyay kadib markii uu 2 gool ugu shubay kooxdaasi habeen uu ku qasbay maca taageerayaasha kooxda Isbaanyool inay u sarakacaan oo shacabka u garaacaan sidoo kale goolka isaga waraysiga uu qaaday ayaa ilaa imika la isweydiinaya magaca ayuu weydiiyey maxaa halkaa inankan beerihii basaatiin uu adeega ayaa uga diray lama garanayo midkan kale waa daawado rasmiya waa fotograferkii lagu qoray baad moodaa Vinicius yorun baa la yidhi maxaad ahay fotograferkii baan ahay walaalow gacaliyo yaa si fiican u qabaan sawirka kaa qaade kan kale adeegaan loo dirin ayuu xaraashlaha ka doonay markii la weydiiyay magaca baa lagu yidhi inuu magaca dhabarka jeediyo un bay ahayd xaggaa taarabun kuu sii socdaa sariibadda xaggeeda xaraash adeegaan loo cayimin ayuuna markaa doontay waxay tidhi Real Madrid weli may ahaateen saf annagu maaha kuwa gelayna taasaan ku hortegaynaa Clasico iska xaqiijista horyaalkiina Tottenham Hotspur Real Madrid walow sanadkan cadabaar la xarooteen
dhinaca kale kooxda Tottenham Aston Villa ayay harageeda ku tukatay maalinkan maalmaha ka tilmaaman kulan si gaar ah isha loogu hayay Richarlison mar kale intuu gool ka dhaliyay Aston Villa ku dabaaldegay oo 150 bahalkii dabaaldegyood uu ku sameeyay halkiisa gool hadduu dhaliyo wuxuu ku sameeyay 150 shactaro yaa Aston Villa way ka biiqday baynu oran karnaa wala way iyadu booskeeda mar hore bay xoreysatay laakiin Tottenham halkan waxay ugu jirtaa inay kurka kala baxdo cimilada bedelan yaa tan iyo macallin Deserbi intuu yimina xilli ciyaareedkan waa markii ugu horeysay Tottenham 2 kulan oo isku xiga ay badinayso dhinaca kale kooxda Inter Milan waxay si rasmi ah ugu guuleysatay horyaalka Serie A waxaanu leenahay mabruuq hambalyo Tottenham Spalletti halkankiina waad ka dhamayseen balse waxay lintu soo hoyatay waa AS Milan iminka 22 horyaal ayaa ay marayaan kooxda Inter Milan halka AS Milan 19 ka haysato Milan waa isbuluug ayay ku leeyihiin kooxdan reer Inter sababtoo maxaa yeelay magaalada Milan cidda wax laga weydiinaya waa naga dhinaca kale kooxda Al Nassr habeenkan iyagana markaasi haragooda inta lagu tukadaa 3-1 loo dhiibay horyaalka ridaha loo ballaqay waxa la isla Al Nassr iyo Ronaldo sanadkan odaga way ugu cumaamadayaan horyaalka Saudi Pro League balaya sahashay xilli kalaasikadii horyaalka Saudi Pro League ay soo socoto toddobaadka dambe iminka xaalku waa uu ku xun yahay liiskii waa uu furmay hogaankii hadday maanta badin lahaayeen waxay ahaan lahaayeen kuwa baan ku yidhi kuwa xalaashada sanadkan laakiin iminka kulanka haddii laga badiyo mar kale 2022 Al Nassr waiting bay ku jirtay oo waa laga qaaday 23-24 ha sheegin 24-25 cunaha la qabtay 25-26 raja gashay waiting bay ugu yar jireen goorma dabaaldegi doontaan iyo siday waxaad raysan doonaan ayay ku fakerayeen laakiin maxaa ka galay ayaa xaalku noqday iminkay riduwa ballaqan yihiin kulanka kalaasikada wixii lagu kala calaf qaado midii Roma reerka u soo hadhi doonta ama Al Nassr ba si xalaashan doonta ama Al Hilal ayaa markaas noqon doonta gaariga ninkii wadi jiray garan hal loo daayo maalintii maalmaha ka tilmaanayda Super Sunday waaryaale imisan anigu ideeyay intaan lagu karsan adigu wax karso la karsadaha noqon ee wax karsada noqo hubintu waa kariskii iyo kala haalintii iyo karbaashkii kooxaha anigu waxaan ahay Maxamed Tirike iska dhig falowda leegtan ugu dhiiri gali aragtidaadu waa muhiim la wadaag asxaabtaada midka laga jiiray iyo midka wax karsadayba sida ayaa maana Allah sanad guro wacan ku soo dhawaada Smart Dental Clinic wuxuu bartaylka $100 kaliya oo ka faa'iideysan qiimo dhimista sanad guro ee dhakhtarka Smart Dental Clinic taasoo lagu talagalay tiro kooban oo kaliya